soo noqod wanaagsan khiyaaraya meel kastoo aad dunida ka joogtaan Iiraan ayaa sheegatay in ay diyaarad Mareykanku uu leeyahay ay soo riday sida Iiraan sheegatay warbaahinteedana haatan qabsatay iyo tan caalamkaba dhanka kala daawadayaal dowladda dalka Kuwait wasaaraddeeda difaaca oo meesha diyaaradan ay ku soo dhacday ayaa sheegtay saaka dhowr diyaaradood oo Mareykan ah inay soo dhaceen mid ma aha laba ma ahan dhowr diyaaradood ayay sheegeen wararkii ugu dambeeyay ayaan idinka daba geyn doonaa waa maxay warka uu soo saaray Cali Larijani ee Donald Trump uusan waxba ola harinin ee lagu tilmaamay madaafiicda afka lagu tilmaamay oo hadalladu marmar bay madaafiicda ka adag yihiin warkan ayaan idin akhrin doonaa goor dhow haddii Ilaahay yiraahdo balse aan idinka daba geeyo wararkii ugu dambeeyay haddaadan Brit Somali TV ku xirnayna fadlan rukunta si aan idinka waxba idiin sheegin annaguna tiradiina iyo tayadiina ugu faano saacadda boqortooyada Ingiriisku saacadan waxay tilmaamaysaa 10kii iyo barkii subaxnimo waana subax isniina soo dhawaada haddaba daawadayaal marka ugu horeysa dagaalka xagee ayuu maraya dagaalkii waa ballaartay Iiraan ayaa ku soo biilay warar haatan soo kordhaya Iiraan ayaa ku soo biilay sidoo kale Iiraan waxa ay diyaaradaha Shahed la yiraahdo ee droniska ay ku weerartay mid ka mid ah xarun military xarun ay leedahay dowladda dalka Ingiriiska ay xarun ciidamada cirka ee dowladda dalka Ingiriisku ay leeyihiin oo cyber isku taala arrintaasna waa la xaqiijiyay Qatar ayaa sheegatay duqeymaha isdaba joogga ah ee ay Iiraan ku hayso inaan loo adkeysan kareynin ficilna ay uga jawaabayso wadamada golofku dagaalka ma ku soo biiri doonaan mise kuma soo biiri doonaan war baan ku hayaa toos aan ku geeyay haddaba wararka ugu dambeeyay diyaaradda waa u imaanaya Cali Larijani iyo hadalka Trump uu ku yiri waa u imaanaya balse marka hore aynu isla eegno wararkii u dambeeyay iyo xaaladdu meesha haatan ay marayso dhowr war oo kala duwan ayaan insha Allah taala idin la wadaagi doonaa waayahay waxaag warkan analysis-ka ay 8 daqiiqo soo dhacay sida arkaysaanba Iiraan waxay u aragtaa wadamada oo Iiraan waxay u aragtaa Mareykanka ciidamadooda bariga dhexe ay ku leeyihiin markaas meel ayaga loogaga soo duulayo waana sababta keenaysa siday horeyba u sheegeen inay wadamadaas ay weerar ku qaadaan 13 daqiiqo ka hor warkan soo dhacay waxa lagu soo waramayaa Abu Dhabi markaas in ay ferir qaraxyada markaas Iiraan duqeymaheeda ah ay meel warehouse ay ku soo dhaceen oo markaa ganacsi ayaa lagu soo waramaya dowladda dalka Faransiiska ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay difaacdo wadamada golofka oo ayagu haatan ay muuqato inaysan isdifaaci karin waxa loogu tilmaamay sitting duck waxa loogu yeeray digaaga wuxuu ku fadhiyo gowda laga saarayo oo waxa la leeyahay aaw hubkii iyo agabkii ay haysteen iyo balaayiinta lacagta mar walba laga qaato ay hubka ku soo iibsadaan maxay isku difaaci waayeen khubarada qaarkood waxay leeyihiin Iiraan waxay haysato iskama difaaci karaan qaarna waxay leeyihiin waxa keenaysa inay u muuqdaan oo ay dariskooda ay yihiin aynu ku socono haddaba professor Rob oo markaa ka socda asagoo King's College London ahna falanqeeye ayaa Al Jazeera u sheegay waxa uu yiri ujeedada Iiraan ay u duqeynayso wadamada golofka waa mid iska cad maxaa yeelay ayuu yiri way u dhow yihiin laakiin si kale oo loo macneeyay aan ku sheego oo waxa la sheegay Iiraan waxay u weeraraysaa waxay og tahay inaysan wadamadaas iska celin karin in labo inay khadka u galayaan Donald Trump ay leeyihiin qayla dhan ay geynayaan ay leeyihiin waxaan aad ugu hawshan dagaalka aad bilowday naga soo gaar xaaladdu meel halis ah ayay maraysaa Iiraan ayaa lagu soo waramayaa 500 oo qof markaas in laga dilay iyo 50 tan iyo intii haatan dagaalku uu bilowday isla mar ahaantaasna weerarro lixaad la haatan ay ku socdaan balse Iiraan Al Jazeera la yara joogno Iiraan ayaa haatan sheegtay warkan 27 second soo dhacay xarunta nuclear-ka weyn ee Natanz in la weeraray hadalkaas hadal weyn oo culus weeye Iiraan waxa ay sheegtay xarunta Natanz ee bartamaha dalka Iiraan dhacda ee nuclear-ka in markaas Israa'iil iyo Mareykanku ay weerareen warkaas 27 second ayuu jiraa waayahay 5 Iranian soldiers
kill in US strike وهجاج أينو هضبة أنا ورك كلا إسكسو دبنا عيا ديارة دوادي كده بجين دونا هي ماشي حالته أي مرة يسوي آدي آدي أم هاتسنتين وورر توصل داود يا سيدي عادي يروح الجتيبة تصوي تابسي يا ماشي حالته أي مرة يسوي هدي الله يرهذو آدي كده بجين لسه بقول جودها إسرائيل ورك يود بي حاطن كسو بحيا هدي أينو أينو كوية 8 دقيقة رويترز waxa ay tabanaysaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Qatar inuu yiri Iran waa inaan tallaabo aynu ka qaadnaa oo duqeymaha ay noo geysanayso ku jaango-an waxa uu la hadlayay wasiirka arrimaha dibadda markaas waxa uu la hadlayay CNN Saaka oo isniina waxa uuna sheegay Iran weerarada ay ku hayso in aan loo dulqaadan karaynin daruurina ay tahay in ficil loogaga falceliyo soo Qatar dagaalka ma soo geli doontaa mise soo geli mayso aragaana goordhow iyo wixii soo kora waxaa muuqata haddaan maqli jirto nin walba ceesaantiisa ceelka keensay hawada ayaa la isku arkayaa Iiraanna diyaar weeye wadamadan kalena waxay leeyihiin waanu arki doonaa war kale oo 11 daqiiqo ay soo saartay 11 daqiiqo hore ay soo saartay Reuters ayaa waxa uu leeyahay Iran ambassador to the UN ayaa waxa uu sheegay in markaas xarumaha nuclearka Israa'iil iyo Iran ay leedahay Israa'iil iyo Mareykanku ay haatan duqeynayaan waayahay halkan waa synagogue shalayto markaas ay duqeysay Israa'iil Iran ay duqeysay markaas duleedka magaalada barakeysan ee Qudus kaas oo sababay 9 dhimasho iyo 121 dhaawac ah synagogue waa macbud dadka Juushka ay wax ku caabudaan iyo agagaarkiisa oo dhan ayaa burburay baaritaan ayaana haatan socda halkan waa madaxweyne Herzog oo goobta weerarka uu ka dhacay uu tagay gadaashiisa waxa ka muuqdana waxa ay daliil u yihiin weerarada iyo dagaalka oo hadda meesha uu haatan marayo Hezbollah oo dagaalka ku soo biiray Hezbollah ayaa dagaalka ku soo biiray sida Herat ay haatan ay tabinayso oo markaa bilaabay in ay markaa Israa'iil ay weeraraan soo ayagu waqooyiga Israa'iil ayay duqeynayaan laakiin Hezbollah waqooyiga Israa'iil uma yaqaanaan waxay u yaqaanaan dhulka Falastiin ee la haysto wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda Israa'iil Katz ayaa sheegay in ay darsi u dhigi doonaan laba ilaa waana isla mar ahaantaasna ay bartilmaamaysan doonaan Secretary General Naciim Qaasim oo ah ninkii Xasan Nasrullah booskiisa galay ayaynu bartilmaamaysanina ayuu leeyahay sidaa waxa uu hadlaya Israa'iil Katz oo ah ninka markaa taayga qaxaran ee la taagan taliyaha ciidamada ee Israa'iil daawadayaal waa ku soo dhaweynaynaa waxa aad la daawanaysaan Brit Somali TV iyo wararkii ugu dambeeyay iyo meesha haatan ay xaaladdu marayso wax yar ii dulqaado waa hagaag halkan haatan aad arkaysaan waa markaas xarumihii aan halkaa ka gudubno wax yar ii dulqaado kan waa akhrinay already وحاجات سولو هذا خيار مالك سودوني ذاك جوكتان وركان إنجليز كان يكسب سياهي رويترز أيام مركز تبيني سافر ساعات كوروز العويلها سايبرس أيام شيء مركز إشهاد درون لغو رأي RAF أو مركز إذا ماذا عركة دولة بقرطوية إنجليز ك وحنا شيء مركز خسارة أرنتاس كلا شيء اللي يسجلين ذلك سايبرس حرمتها أي كليهين madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay weerarka Israa'iil iyo Mareykanku ay ku qaadeen Iran inay ahayd marka hore in laga doodo oo markaa sharciga loo maro qaramada midoobay la hor keeno inta aan weerarka lagu qaadanin arrintaas waa isa soo taraysa caalamkuna wuxuu u arkaa khubarada caalamka ee shuruucda caalamka yaqaanaana waxa ay leeyihiin waa dagaal aan markaa sharciyad aan haysanin oo si bareera oo cad loogu qaaday dowlad xor ah oo markaas madax bannaan waayahay warkaan haddii aynu ka baxno daawadayaal dib waxaanu ugu noqon doonaa Kuwait warka ka soo baxay ee weyn ee sheegaya wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Kuwait ay sheegtay in diyaarado fara badan ay soo dhaceen oo Mareykanku uu leeyahay waxaa la isweydiinayaa khalkhalku xagee ayuu ka yimid Iran laakiin waxay sheegatay diyaaradda iyadu inay soo riday waayahay laakiin marka hore aan ku geeyo Ali Larijani aan ku geeyo علي لارجاني وسياسي رقعداء أهنا نيكي وكدر دارمي آيات الله على خميني بوسكي سئنو قالوا أبيه نين عانا أولي قانا أيوها أو إيران تاريخ فكرة ويهي محيري
intaana warkaan ku aqrin waxaa xusid mudan in Donald Trump habeenkii xalay tahay uu yiri Iran maadaama odaygeedii la dilay waxay diyaar u tahay in la wada hadlo waa nala soo xiriiraan. Iran waxay tiri waa cantara baqash iyo war aan sal iyo raad lahayn. waxayna dadku qaarkood ay ku fasireen waa say iyagu hadalka u dhigeen garo inuu Trump doonayo dagaalka inuu joojiyo uusan sii wadi karaynin xilli 3 askari laga dilay 5 dhaawac halis ay yihiin xayn kale oo tiradooda aan la xadidinin la sheegay dhaawac fudud inay yihiin dagaalkiina uu socdo hormuus xiran tahay bariga dhexe oo holcayo. wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Ciraaq maxan Iran baa ula jeeda Abbas Araghchi oo sheegay gobolka waxa ka dhacaya Donald Trump ayaa mas'uuliyaddeeda qaadaya ayuu yiri. haddaba Ali Larijani Iran waxa ay sheegtay inaysan wada hadal la rabinin inay Mareykanka la hadashana aysan doonaynin. 2 jeer ayaanu la fariisanay labadii jeerba miiskii wada xaajoodka ayaa Mareykanka Israa'iil ay duqeeyeen ayuu yiri. mar saddexaad waa habeenkii xalay ah tagay weey. Soomaaligu wuxuu yiraahdaa mar daga ku socod waayahay. Ali Larijani muxuu yiri hadalkiisa waa kan warkaan hadda ayuu soo dhacay xilligan haatan aan idin la hadlayno tobankii subaxnimo iyo waxa u dhow saaka boqortooyada Ingiriiska timekeeda. waayahay muxuu yiri Trump's wishful thinking has dragged the whole region into unnecessarily war. Trump riyadiisa iyo waxa uu doonayay iyo waxa uu markaa damacsanaa waxa ay sababtay gobolkii oo dhan dagaal laga baaqsan karay in uu markaas uu ka horiyay. haatana wuu walwalayaa and rightly so inuu walwalana waa arrin muuqata ayuu yiri maxaa yeelay waxa uu yiri madaxweynaha dalka Mareykanku wuxuu ka baqayaa more American casualties dhaawac iyo dhimasho fara badan inay Mareykanka soo gaarto ka baqayaa sida awgeed ayuu noo walwalayaa. cidda wadnaha farta ku haysa waa Trump ayuu leeyahay Ali Larijani. hadaladiisan waxaa lagu tilmaamay dadka ka faaloonaya waa say iyagu hadalka u dhigeen madaafiic afka ah oo loo dul qaadan karin oo Trump ku garaacayo. waxa uu yiri haatan ayuu walwalayaa madaxweynaha dalka Mareykanka and rightly so because he's worried more American casualties. It is indeed very sad ayuu yiri. xaqiiqatan waa arrin aad iyo aad loogaga xumaada ayuu yiri in uu Donald Trump uu markaas uu hanti iyo dhiigga Mareykanka uu markaas uu u biimeynayo sidii Netanyahu sharci darrada dhul ballaarsiga uu ku horiyoonayo uu u gaari lahaa. warku markuu daaqay Israa'iisha weyn ee la doonaya in la ballaariyo ayuu leeyahay ayaa dhiigga iyo hantida Mareykanka Trump uu u daadinaya. warkan war siyaasadeed oo weyn weeye daawadaya oo uu leeyahay uu iska horkeenayo Trump iyo dadkii doortay ee uu ku yiri doorasho dagaal gali mayno dagaal oogi mayno noqon mayno. warkii Tucker Carlson ayuu sidoo kale wariyaha weyn ee Mareykanka dhinaca midigta u janjeera ee yiri malaayiin lacaga iyo dhiiggeena ayaa ku daadanaya dagaal anagu aan shuqul ku lahayn sababaan u dagaalanaana ma jirto Iran loo weeraro. haatan Trump wuxuu gacanta ku hayaa balaayiin lacaga oo dagaalka galaysa balaayiin kale oo caalamka ka khasaaraysa dhiiggii Mareykanka oo dhaawac iyo dhimasho isugu jira. Ali Larijani wuxuu yiri Netanyahu ayaa loogu cimaamadayaa in waxaas uu Mareykanku sameeyo yaa idin taliya ayuu weydiinaya. Indeed it's very sad ayuu ku leeyahay. That was Ali Larijani saaxiib aan ku weydiiyay su'aal toos ah adigan haatan daawanaya Brit Somali TV mar rukumatay gambaleel kusuma ku furan yahay waa ogahay inaad ilowday in badan ay already subscribe tahay hawsha hadda kala tuurado aad u mahadsan. waxaynu aadaynaa haatan daawadayaal wararka kale ee ka imaanaya caalamka haddii aynu isla yara eegno iyadoo daqsi loo xiro. here we go gudaha Israa'iil aynu ku yara noqono mar kale intaanan Al Jazeera kusoo gabagabaynin. waa hagaag warkaan 7 sakan ayuu soo dhacay sidaad arkaysaanba warbaahintan ay haatan tabinayso. IDF ciidamada difaaca ee Israa'iil ciidamada xoogga ee Israa'iil ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen Hezbollah oo ay ugu yeerayaan argagixiso Beirut ayayna bartilmaameedsadeen. sidaad arkaysaan warkii hadda ayuu daaran yahay ee ku saabsanaa markaas
in uu sheegay Israel Katz inay bartilmaameedsan doonaan General Secretary Naciim Qaasimi inay bartilmaameedsan doonaan. waa hagaag Turkiga ayaa waxa ay beeniyeen reports US bases has been okay, don't worry about that. Here's khasaaraha kasoo gaaray Israel dagaalka haatan socday ilaa haatan inta la xaqiijiyay 9 qof ayaa lagu dilay dagaalka 9 qof ayaa dagaalka lagu dilay 121 waa dhaawac burburkana waa idinka arkay weeye. waxaan rabaa inaan idin geeyo Kuwait warkan ayay soo saartay. I think that Arkistan yes waa ujeedaan. Thank you very much khiyaarta sharaftii karaamada leh waa karaamada leh. Kuwait waxa ay soo saartay warkan wasaaradda difaaca dowladda dalka Kuwait ayaa waxay soo saartay warkan waxayna leedahay several US warplanes crashed in the country, all crews survived. diyaarado fara badan 5 baa 2 baa 6 baa 8 baa 10 baa ka badan yihiin, we don't really know because ma aysan sharaxin khasaaraha waa la xadidaya arinta control damage ayaa la yiraahdaa. Control damage ayaa lagu macnayn karaa haddii si kale loo dhigo. waxay yiraahdeen diyaarado fara badan oo Mareykan ayaa burburay gudaha dalkooda ayayna ku burbureen. dadkii pilotyada ahaa ee wadayna kulligood waa bad qabaan ayay yiraahdeen. waayahay a footage show at least one pilot waa kan weeyaan oo muuqaalkiisa hadda la tusi doono. hal pilot ayaa video laga duubay oo video baraha bulshada la soo geliyay ayaa lagu arkay hal pilot oo markaas gacanta lagu soo dhigay isla mar ahaantaasna waxa la yiraahdo parachute-ka ogaga booday markaas diyaaraddaas. saaka waxa ka dhacay halkaas arrin aad iyo aad loo hadalhayn doono weeye taariikhda. maxaa yeelay diyaaraddaana waa F-15 Eagle weeyaan. waa diyaaradaha Mareykanku uu ku dhaartay ee casriga ah ee dagaalka la soo geliyey. in pilotkii uu iska tuuro oo diyaaraddii ay burburto afka ay dhulka gashato waa arrin aad iyo aad saameynteeda u leh. Iiraan waxay sheegatay in ay iyagu ka dambeeyeen Mareykankuna uu qarinayo. waa ku soo dhaweynayaa. waxaan rabaa haddaba inaan kuu geeyo meeshaas iyo pilotka laftigiisii inaanu muuqaalka isla yara aragno. aan hal mar kuu geeyay soo dhawaada daawadayaal aynu wada daawano sida ay wax u dhaceen iyo pilotka iyo sawirro ayaan ku hayaa aan jeclay inaad daawataan. waa kana bal daawasho wacan. cod malaha videogu cod malahan wax yar daawada wax yar weeye isagoo dhan. وهاجاك داوديال waxaad arkaysaan muuqaaladii ugu dambeeyay ee markaa laga soo duubay pilotkaas. waxaan rabaa haatan inaan tuso saddexda markaa sawir ee baraha bulshada hadda ku jira ee ku saabsan markaa pilotyada saddexda ee hadda gacanta lagu soo dhigay ee dalka Kuwait markaas lagu arkay aynu isla yara eegno iyo idinkoo aad iyo aad u mahadsan. waxaan rabaa inaan sawirradooda idin tuso. and here they are. وحاجات الكوبات ونكاس وي بايلوت كا gacanta lagu soo dhigay dhiigu ka da'ayo. Pilotkii diyaaradda F-15 ka waday weeye. waa ujeedaan qalabkii oo markaa xirnaa iyo weli tuutihiisii ayuu xiran yahay ee dharka pilotyadu ay xirtaan. kaas waa midka koobaad weeye. midka labaad waa ninka caddaanka dheer ee bartanka ku jira. laba ma iga haysaan. kan saddexaadna waa haweeneydan oo weli dharkeedii xiran oo ayaduna diyaaraddeedii ka booday. su-aasha isweydiintana waxay tahay saddexdan diyaaradood maxaa kalifay in ay bayloodyadoodii ka cararaan oo markaas baarashuudka ay ugaga boodaan oo ay dhahaan badbaado allah bari baan ka ahay diyaaraddan waa ka baxaya. maxaa sababay? warkaasu ma cadda. laakiin Iiraan waxa ay sheegatay
in ay ayagu ka dambeeyeen ugu yaraan mid ka mida waa say iiraan hadalka u dhigtay annaga ayaa soo ridnay ayay tiri marka Sukhoi diyaaradda la yiraahdo Ruushka uu sameeyo ee Mareykanka uu leeyahay iiraan ay soo iibsatay ee la sheegay inay tahay markaas diyaarad da'a marka loo eego F-15 iyo F-16 iyo diyaaradaha halaaga Mareykanka loo eego iyo F-22 oo Mareykanku ciduu ka iibiyay aysan jirin uu diiday cidna inuu ka iibiyo aynu ognahay inay saarnaayeen markabka weyn ee la yiraahdo Gerald Ford diyaaradahaas Mareykanku haystaa diyaaradda oo inay soo riday teknolojiyadda Mareykanka ayay calaamad su'aal saaraysaa Ruushku waa daawanaya Shiinuhu waa la socda xaaladdu meesha ay marayso waayahay waxa ii muuqdo war uu leeyahay Rafael Grossi oo ah markaas ergeyga qaramada midoobay oo qaabilsan hay'adda nuclearka adduunka xakameyntiisa oo leh Iiraan warka ay sheegayso sax ma ahan Mareykanka iyo Israa'iilna ma aysan duqeynin ma ay gaari karaan gantaaladoodu ma gaari karaan nuclearka Iiraan oo dhulka hoostiisa ku jira su'aal kale oo weyn ayaa ka soo baxaysa halkaan markiiba ii muuqata sorti Trump uu nagu yiri habeen markii baanu ku lisnay midnight hammer operationkii la oran jiray ee sanadkii tagay bishii June sidee ayay ku dhacday haatan inuu Rafael Grossi leeyahay gantaaladooda iyo madaafiicdoodu ma gaari karaan Iiraan inay shaaciso oo meesha xarumaheedii la weeraray gaar ahaan Natanz in la weeraray hadhow leak ayaa ka dhalanaya shucaac ayaa ka dhalan kara haddii uu shucaac ka dhashana ummadda ayuu halaagi karaa marka Iiraan waxay u sheegayso warkaas waa la fahmi karaa inay run sheegayso in kale we don't know Mareykanku inuu run sheegayo we don't know Israa'iilna warkeeda badaa marka cidda run sheegaysa lama garan karo dagaalku meesha uu marayo mar kaliya ay jecleen hal mar isha mariyo san adigu up to date noqotid wararkii ugu dambeeyay xaaladdu meesha ay marayso maxaa kale fa intaas oo diyaaradood oo Mareykana in ay isku soo dhacaan وهجاك ورحد صنعي شركة وين مركز جديد كبدأ إنجليزكا أي واحد أي شركتي مركب وين أو مركز بحرين رول الهواء واحد أي شركة مركب وين أو مركز يالي بحرين بورت حددان إنجلترا لغنفتي البروجكتايل أي لغنفتي وحساس شيء يسا UK United Kingdom Maritime Trade Operations شركة وين مركز جديد كبدة أي أساس شيء لسه right now أيها الغرفة وركاس لحية لبعتن سكن أيو مركز وصحافة كل جراء أنا كل ذاك صاحب أنا يريد تسوي تابسيع عالمكم يشو مريو وأنا كاس لحية لبعتن سكن كور أيو وركاس وصول عي مركبكاس دكده يالي بحرين in lagu dhuftay halkaas ayay sheegayaan waayahay لح دقيقة كورنا إسرائيل يا waxa ay xaqiijisay in hadda gantaal Iiraan uu leeyahay hawada ku soo jiro right now hawada ku soo jira waayahay khadariya sheegtay weerarada Iiraan ka dhan inay bartilmaameedsanayaan markaas civilian infrastructure oo uu ka mid yahay aeroboortka weyn ee Khadar oo ku soo dhaweynaya daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ayaa daawanaysaan ee xiisadu meesha marayso soo dhawaada waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 applicationka lacag dirista degdega ah ee MyRemit muddan sugayo maskaxda ku hayay maantaan helay meeshii aan rabay iyo ma dhaafaan lacagta lagu diro waana nidaamka lacag dirista degdega ah ee MyRemit waa nidaam casri ah oo aad lacagaha uga diri karto dhammaan gobolada Soomaaliya Ethiopia Kenya iyo bangiyada Soomaaliya bangiyada Ethiopia mobilada EFC Sahal MyCash iyo dhammaan nidaamyada mobilka ee lacagta lagu diro haddaba soo degso MyRemit app xawaalada MyRemit app ku dooro amaano degdegsiimo iyo lacag diris goor kasta